qowmiyadda Saamiga ee dalka Norway ayaa maanta oo ku beegan 6 bisha February waxa ay u dabaaldegayaan maalinta qarannimada u gaarka ah qowmiyaddan waxayna munaasabadan oo meelo kala duwan ka dhacday lagu xusay aqalka looga arrimiyo magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 500 oo qof oo kala duwan ayaa ku dabaaldegaya muujinayna maalinta qarannimada u gaarka ah qowmiyaddan Saamiga ah. aqalka magaalada Oslo looga arrimiyo ayaa 9kii subaxnimo ee saaka waxaa laga taagay calanka Saamiga taa oo lagula xusayay looguna dabaaldegayay munaasabadan qiimaha ku leh qowmiyaddan. Anna Lindebo oo ah duqa magaalada Oslo oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in ay ka soo qayb gasho munaasabadan ayna farxadda iyo dabaaldega la qaybsanayso qowmiyadda Saamiga una rajeynayso baraare. si taalamida kamuunka magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa soo iibiyay in ka badan 1200 oo calamada Saamiga ah kuwa oo lagu xardhay gawaarida kala duwan ee ka shaqeysa magaalada Oslo hadii ay ahaan lahaayeen basaska, tareemada iyo kuwa kaleba. waxaana munaasabadan ay qowmiyadda Saamiga u dabaaldegaan sanad walba maalinta ay ku beegan tahay bisha 6 February. waxaana leenahay hadaynu nahay bahda Somali Voice hambalyo qowmiyadda Saamiga Norway. shirkadda Sund AS oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn dalka Norway oo ay milkiyadeedu leeyihiin 2 gabdhood oo walaalo ah kuwa oo kamid ah haweenka ugu taajirsan dalka Norway ayaa adduun lacageed oo gaaraya 2.4 milyan oo karonka Norwejiga ah waxa ay ugu yabooheen xisbiyada Høyre iyo FrP si ay ugu guuleystaan doorashada inagu soo fool leh ee ka dhici doonta dalka Norway bisha September ee sanadkan aynu ku jirno ee 2025. adduunkan lacageed ee gaaraya 2.4 milyan ayay labada xisbi u kala qaybsan doonaan ama u kala qaadan doonaan min 1.2 milyan oo karonka Norwejiga ah waxa ayna ku gali doonaan doorashada inagu soo fool leh taa oo u noqon doonto kab xoogan oo ay doorashadooda ku furdaamin doonaan. wasiirka gaashaaniga wadanka Israel Katz ayaa ugu baaqay ciidamada wadankaasi in ay u furaan wadooyinka si shacabka ku nool marinka Gaza ee reer Falastiin ay uga baxaan marinkaasi. waxa uuna ugu baaqay wadamada Norway, Spain iyo Ireland in ay dadka Falastiiniyiinta u daadgureeyaan wadamadooda maadaama ay marar badan ku dhaleeceeyeen ama ku cambaareeyeen wadanka Israel inay xasuuq iyo dhibaateyn ku hayaan shacabka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza. arrintan uu ku dhiiraday wasiirkan ayaa waxa ay timid ka gadaala markii uu kulan aqalka cad ku dhaxmaray madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ka oo uu Trump ka sheegay in ay tahay Falastiiniyiinta ku nool marinka Gaza in ay ka baxaan marinkaasi oo ay aadaan wadamada Urdun iyo Masar halkaasna ay degaan. waxa uuna sheegay in marinka Gaza uu Mareykanka la wareegi doono dib u dhisna uu ka sameey doono. arrintan ayaa cambaareen xoogan waxa ay uga timid dunida waxa ayna sheegeen wadamada Urdun, Masar iyo Sacuudiguba in ay tahay wax aan la qaadan karin in muwaadiniin dhulkooda laga qaxiyo lagalana wareego. xukuumadda cusub ee dalka Norway ayaa isu diyaarinaysa qorshaheeda iyo istiraatiijiyadeeda ku wajahan ilaa 2030 ka oo ay wax uga qabanayso cimilada sii xumaanaysa ee guud ahaan dunida ka jirto si gaar ahaaneedna midda Norway. xukuumadda cusub ayaa sheegtay in ay ugu yaraan dhimi doonto 55% qiica ka baxa warshadaha kala duwan ee dalkaasi si ay u yaraato waxyeelada cimilada. wasiirka cusub ee wasaaradda deegaanka iyo cimilada Anders Eriksson ayaa ka dhawaajiyay in ay hayaan dhabihii saxa ahayd ee ay ku hirgeli lahaayeen mashruucan oo ay ku dhimayaan ilaa 55% ilaa 80% marka loo eego laga soo bilaabo 1990kii waxyeeleynta cimilada oo ay sababayeen qiica ka baxa warshadaha gaaska. ra'iisul wasaaraha dalka Norway Johannes Støre ayaa maalinnimadii shalay oo Arbaco ahayd baarlamaanka ka hor sheegay in ay dejiyeen qorshe iyo istiraatiijiyad oo yoolkeedu yahay in ay ku gaaraan 2030 kuna dhimaan ugu yaraan 55% qiica ka baxa warshadaha gaaska ee waxyeeleynta cimilada sababa. halka ay wararka ugu door karoon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.